waxaan u baahanahay markaa soo koobo warku inaynu isla aragno waa maxay planning. Planning marka laga sheekeynayo does not plan provide directions, unity of purpose on the organization. Planning macnaheedu ma ahan inuu qoseynayo wadadii aad ku guuleysan lahayd oo kaliya, macnaheedu ma ahan. It also answers 6 basic questions. Planning-ka marka adigu aad leedahay ogow, qorshe marka adigu aad leedahay qorshuhu waa waxa keenaya adigu inaad guuleysato ama inaad guuldareysato waayo marka aad qorshe leedahay qorshuhu wuxuu ka jawaabayaa 6 su'aal oo ay muhiim tahay inaad ogaato jawaabtooda. 6 su'aal kaliya waxa awoodo inay ka jawaabaan cid qorshaha leh balse cid aan qorshaha lahayn ma awoodaan inay ka jawaabaan su'aalaha caynkaas oo kale. waxaa ka mid waxyaabaha 6 basic questions-ka oo haddii aynu leedahay qorsho aynu awoodin inuu ka jawaabno waxaa ka mid ah what needs to be accomplished. qorshahanagu wuxuu inoo sheegayaa waa maxay waxa anagu aynu rabno inaynu qabanno. anagu maxaynu nahay ma waxaynu qolo service bixisa mise qolo product soo saarta anagu maxaynu nahay exactly. marka waxa adigu aad tahay aad ogaato ayaa ku soo baxaysa ka jawaabida su'aasha waa maxay waxa anaga hawshanadu ay tahay waa maxay waxa aynu rabnaa inaynu dhamaystirno ama qabanaa. وسؤال شكوى plan أي كذا جوابه حددا plan هنا وحكالو ميسي جوابت السؤالش ودسكس عنه سيدو كلا قرشهم حقوق شيء جيا حوش أديك وقت هذا مرك هذا وقعته السوق يسألوا إن قرطن سيدو كلا plan حقوق المامية حل جدلين كويه you understand حتى دلين كذا أنص عطوا حكي لنا تهاي waxa aad qabanaysa ayaa la socotaa then waxaad ogtahay barnaamijyada iyo barnaamijkaadi haddii kale aadan qorshe lahayn laba socotid product-ga aad soo saaraysid market-ka ma loo baahan yahay waxaad keenaysaa product-ga xilli aan loo baahnayn waxay ka dhigan tahay adigoo leh warshad barafa oo dad habeenkii 3 saac baqarada iyo magaalada keena yaa ka isticmaalay cid ka isticmaalaysa malaha waa inaad ogtahay product-ga deadline-kooda waxa ku sheegayna plan-ka adigu aad leedahay iyo nooca shakhsiga adigu company-ga aad tahay shaqada laga rabo inaad qabato waxaad ogaanaysaa product-kaaga xilliga uu gadmayo markaad ogaanaysaa fine waxaad ogaanaysaa qodobka labaad ka jawaabida su'aasha ah waa maxay deadline-ka anigoo laga rabo inaan ka faa'iideysto. midda ugu muhiimsan waxay tahay ogaanshaha jawaabta su'aasha kan waxa weeyaan waqti intee la ega ayaan u baahanahay si aan u qabtaa hawsha ay taalo energy intee la ega ayaan u baahanahay ama human power intee la eg ayaan u baahanahay anigu si hawsha ay taalo aan u qabto. sidoo kale dhaqaale intee la eg ayaan u baahanahay si aan u qabto hawsha ay taalo isla markaana aan u gaaro halka aan higsanayo oo goolkayga ah. fine 6 su'aal waa 6 su'aal oo u laf dhabara cid kasta oo hawl qabanaysa haddii aadan lahayn qorshe cad ee kuu sheegaya waxa aad adigu ka shaqaynayso waxay ka dhigan tahay haddaadan qorshe lahayn waxaadan la socon hawsha kuu taal xilliga ay kaa bilaabanayso iyo waxa aad u baahan tahay tiro iyo tayo intuba. waxaa la yidhahdaa markaa hay-addu haddii ay qorshe leedahay awood ay leedahay ay ku guulaysato haddii aysan qorshe lahaynna 6 su'aal oo basic questions-ka ah ayaysan la socon jawaabahooda sidaa awgeed waxaa u yaalo jawiga guuldarrada ayaa u yaala oo dadka inta badan asal taariikhi oo sheegi doonaaye haddana way horumarsanayaaye marka laga warramayo planning asal waxay isticmaali jiray military ayaa isticmaali jiray waayo dunidana horumartay ee heerkana gaadhay waxay ku inna qaaday ugu dagaal garanaysan 1648 ilaa 48 heshiiskii weynaa ee ka dhacay Westphalia magaalo German ku taalo ayaa waxaa dunida waxaa ka dhacay dagaalo 8 sano in ka badan la dagaalamayay waa la baaba'ay dunida waxaa ka jira marka militarism power militarism-kana waxay isticmaalayeen waxay ahayd planning qorshe ay ahayd waxaa la yiraahdaa qorshuhu asalkiisa militarism-ka ayaa laga soo minguuriyay asaga ayaa la isticmaali jiray. waxay kala jeedaa marka aynu u soo laabano our contemporary life nolosha casriga ah aynu ku noolahay si aynu u guuleysano waxaynu u baahanahay qorshe cad ee inoo sheegaya sida aynu u guuleysan lahayn. militarism-ka waxay yiraahdaan marka haddii aadan lahayn qorsho waxa ku yeelo qorshihii guuldarrada. you understand waxay ka dhigan tahay haddaad adigoo qorshe leedahay waxaad awoodaa inaad guuleysato waad guuleysan sidaa awgeed haddii aad ku guuldarraysato inaad qorshe cad degsato oo degsan weyda ogow waxaa ku yaala
qorshihii guuldarrada. waxay yidhahdaan in English, if you don't plan you plan to fail. Fine, waxay yidhahdaan if you don't plan you plan to fail. haddii aadan qorshaysan qorshihii guuldarrada ku yaalo, sidaa awgeed shaqada laga rabo managementiga number 1 not number 2 is a planning. Next waxay imaanaya organizing, establishing, leading and controlling. The first is a planning. موضوع ما انت waxaynu kaga warramayna waxa la yiraahdo planning weeyaan. Fine. waxaan meesha ka marnayn inaan su'aal badan iska weydiino oo dicda anigu aan sharaxayo idin kula dhageysanaysaan hadduu alla idmo. qodobka labaad aan usoo dhaadhacna waxaa la yiraahdaa advantage of planning. anigu inaan haddaan hay'ad ahay inaan qorshe isticmaalo maxaan ka faa'iidayaa. You have to know exactly waxa adigu aad ka faa'iidayso qorshahada, waana waxyaabaha kugu dhiirigelinaya inaad qorshe dejiso markaad ogtahay waxa aad ka faa'iidayso. inta badan dadka aan qorshuhu degsan lama garanayaan faa'iido intee la eg ayuu qorshuhu keenayaa. Okay, the military say waa kelmadda hadda aan iri baan ku soo celinayaa, waa horumarsaday. militarigu asal waxay yiraahdaan if you fail to plan, oo warkii aan ahay ayuu si kale u dhigan yahay, labada waa la isticmaalaa. if you fail to plan, haddii aad ku guuldaraysato inaad qorshe degsan weydo, you plan to fail, waxaa ku degsan qorshii guuldarrada. waxay ka dhigan tahay warkii aan sheegay oo ahaa if you don't plan. Fine, if you don't plan, you have to get that. They're interchangeable, they're the same. Okay, if you don't plan, haddii aadan degsan qorsho, haddaad qorshe degsan weydo, maxaa ku yaal? You plan to fail. You plan to fail. waxaa ku degsan guuldarro. You see, if you don't plan, haddaad qorshe dejin weydo, you plan to fail. waxaa ku yaala qorshihii guuldarrada sug waad guuldaraysanaysaa, ogow ayaa lagu leeyahay. militarismku waxay yidhaahdaan if you don't plan, haddii aadan degsan qorsho, you plan to fail, waxaa ku yaal qorshihii guuldarrada. sidaa awgeed waxaa loo baahan yahay inaynu degsano qorsho, islamarkaana ku baraarugsanaano ogaano qorshuhu isticmaalkiisa waxay ku xiran tahay gaaridda guusheenna iyo hadafka iyo higsiga aynu leenahay. qorshe ayaa inaga xiga iyo weliba inaynu ka dhabayno. Fine. Without plan, managers are not set up entire areas waste and release. haddii aadan lahayn qorsho, dadka maamulka ah waxay gelayaan qalad aad u tiro badan. waayo qaladkaadii waxaa ku sixi lahaa waa qorshahadii. hadduusan jirin qorsho, qalad baad iska dabaalan, qaladkaada ayaad iska gelaysaa. sidoo kale waxaa kugu dhacaya erarkaas oo keliya ma ahano waste ayaa kugu dhacaya. haddii aad joogto xaafadani hodan aynu joogno, haddaad xaafadda ay kugu yaalaan foorno rootiga soo saarto, dadka adigoo customerka ku ah haddii ay yihiin 100 qof oo keliya wax ka iibsata, haddii aadan la socon laakiin 100 ay yihiin, ka waran haddii aad maanta soo saarto 1000 xabo rooti ah, customerkaadana waa 100, maxaa kugu dhacaya? waste kugu dhacaya. exactly maxaa loo baahan yahay marka qorshahaada inuu og yahay, inuu la socdo inta adiga aad loo baahan yahay inaad soo saarto, waa in qorshahaada aad ka heshaa. haddaad iska soo saarto maxaa kugu dhacaya? waste kugu dhacaya. mar kastaba dadka productiga soo saaro waxay sameeyaan market research. suuqa waxay ku sameeyaan market, waxay ogaadaan cadadka looga baahan yahay inay soo saaraan. haddii cadad aan loo baahnayn ay soo saaraanna waxaa ku dhacaya khasaar aan loo baahnayn. sidoo kale waxaa kugu dhacaya delay. tusaale aan soo horan ka warramayay, delay ka waran. waxaa loo baahan yahay markuu warshada barafka markuu waagu u beriyo inay ummadda baraf soo saarto, laakiin markay qoraxda dhacdo timaada ka waran, cid kaa iibsanaysa ma lahan. waxayse kaa iibsanaya 4 iyo 3 oo ma garatay si coincidence lama filana ugu faa'iideysanay. waxay ka dhigan tahay marka market exit kugu dhacaysa u socota haddii aadan la socon waxa adiga ku hor yaalo. su-aasha aan rabno inaan ka jawaabno maxay tahay? waxay ka dhigan tahay mawduuca aynu u baahnay inuu qaadano waa maxay advantage-ka uu leeyahay planning. waxay sharaxaya waa mawduucaas. Fine. advantage-ka uu leeyahay marka maxay tahay? give organizational sense of direction. qorshuhu hay-addu wuxuu siinayaa
wadadii guusha cagtu wuxuu ku saarayaa wadadii guusha wuxuu ku tilmaamayaa oo ku tusayaa wadadii aad ku guulaysan lahayd buu ku tusayaa asoo weliba ku dareensiinaya xadad tan kale xata qaladka dhici karaya fine qodobka labaad ee aadka u muhiimsan waxaa ka mid ah focus of attention on the objective marka qorshe aad adigu dejinayso ood hawshan aad gelayso waxaad diiradaada ay ku fuulaysaa hadafka adigu aad lahayd waxaa jira meel adigu target point ku ah destination point ku ah meel baa safarkaaga uu rabaa inuu ku furto uu ku hirinayaa that is your what your objective qorshe kuu sheegaya marka halka aad ku nasan lahayd inuu yahay hadafka ma garatay gaaritaankiisii this is your destination point so far haddii aad reerka ku furto meel aan ma garatay naq iyo doog lahayn waa maxay waa qasaaradii aan ka warramayn inaynu ka laaxino waxaa qodobkaasi la mid ah establish for teamwork yes teamwork haddii aad qorshe leedahay organizationkaaga wuxuu noqonayaa mid ma garatay u samaysan teamwork ama noqonaya mid group ah wuxuu noqonayaa mid team ah waxaan rabaa marka inaan ogaano farqa u dhexeeya team waa maxay iyo group waa inaad ogaataa team waxaa la yidhaahdaa dad isku xiran oo dhibka iyo dhaawacana u wada saameeya laakiin group waxaa la yidhaahdaa dad weliba teamkana hal gool ay leeyihiin groupkana hal gool ay leeyihiin laakiin farqa u dhexeeya wuxuu yahay teamka waxay wadaagaan guusha iyo guuldarada halka goolkana ee groupkana ay wadaagaan aysan wadaagin guusha iyo guuldarada dad mawacayna ay guusha qaataan dad mawacayna guuldarada ay qaataan tusaale waxaan dhihi karnaa adigu fasalkiina haddaan imtixaan idinka qaado oo maanta imtixaankaas aan ma garatay idhaahdo hala galo 10 qof oo ugu horeysa ay guulaysataan aan awalmarin u ballan qaadno 10 wixii ka soo haray maxaa ku dhacaya guusha waxaa iskale inta guulaysatay guuldarada waxay ku eg tahay inta guuldaraysatay sida awgeedinku maxaa tihiin group ayaa tihiin laakiin team ma tihiin team waxaan dhihi karnaa dadka kubadda ciyaara kooxda ah boorti hadduu iska seexda ka waran goalkeeper hadduu iska seexda ka waran hadhow waxaan leenahay asaa guuldarada iskale miyaynu leenahay no they were team they were not group guusha guuldarada way saameynaysaa hal nin hadduu keligii kubadda ka laaco oo bilaabo oo qaado dhigo oo dhameeyo dhaliyo keligiis ma qaadanayo guusha waa ma garata dadkii ka dhexaysaa ma dhahayno jaamacbaa guulaystay waxay leenahay groupkii baa guulaystay ayadada teamkii baa guulaystay sidaa awgeed tusaalaha ugu dhow waxa weeyaan fasalka waxaad ku tihiin group laakiin markaad kubadda ciyaaraysaan maxaad tihiin team that's a good example you can understand my friend